kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij aan kaga hadli doono nolosha iyo sidoo kale halka ay ku dambeyso geerida Hamza bin Laden. Maxay kaga dhigan tahay Al-Qaacida geerida Hamza bin Laden? Warbaahinta caalamka maxay ka dhaheen geerida Hamza bin Laden? Sirdoonka Mareykanka ma haya cadeymo ku aadan geerida wiilka Osama bin Laden. Al-Qaacida maxay geerida Hamza bin Laden u qarinayaan? Muxuuse yahay awoodda ugu badan ee uu ku lahaa? Sideese ay lacag ugu qaataan magaca bin Laden? Aynu ku bilowno xogteena maanta. Si aad wararkeena si joogta ah ula socoto, fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka ee Dan Wadaag Media, sidoo kale furo gambaleelka. Maxay Al-Qaacida kaga dhigan tahay geerida ku timid Hamza bin Laden? Waa su'aal isweydiin mudan. Waxay ku warbixisay warbaahinta lagu magacaabo NBC News 31 July in la dilay wiilka uu dhalay Osama bin Laden ee lagu magacaabo Hamza bin Laden, kaas oo ay Mareykanku aad u doonayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. Haddaba maxay falanqeeyaasha arrimahaasi isweydiinayaan saameynta ay Al-Qaacida ku yeelanayso geerida Hamza bin Laden iyo arrimo kale ayaan halkan idinkugu soo bandhigi doonaa. Aan ku bilownay, maxaa ka jiro in uu Hamza bin Laden geeriyooday? Caddeynta in Hamza bin Laden dhintay waa mid weli humaag badan uu ku jiro, isla markaana uu humaag ku dahaaran yahay, iyada oo caddeyntii ugu horreysay ay u muuqatay mid aan si wanaagsan loo muujin, isla markaana si weyn looga shakiyay xaqiiq ahaanshiheeda. Warbixintii asalka ahayd ee NBC sii daysay 31 July ayaa oranaysay ma cadda in Mareykanku uu xaqiijiyay geerida Hamza bin Laden. Sargaal Mareykan ah oo la hadlay jariirada lagu magacaabo The Wall Street Journal ayaa sheegay in geerida Hamza bin Laden ay u muuqatay in ay dhacday waqti ka hor, laakiin waxa xaqiijiyay kaliya wakaaladda sirdoonka Mareykanka isbuucyadii la soo dhaafay. Xitaa wuxuu ku daray faahfaahinta lama hubo. Warbixinta bilowga ah midkoodna muu sheegin goorta Hamza bin Laden la dilay ama cidda dishay. Mana jirto cid sheegi karta halka uu ku sugnaa labadii sano ee la soo dhaafay, waxaana muuqaalkiisa ugu horreysay ajal uu iska soo duubay bishii Maarso sanadkii 2018, taas oo uu ku kicinayay shacabka boqortooyada Sacuudi Carabiya isaga oo u soo bandhigay in ay sameeyaan kacdoon ka dhan ah Sacuudi Carabiya. Marka la eego faahfaahin la'aanta geerida Hamza bin Laden, waxaa jira sabab looga shakiyo in Hamza bin Laden la dilay. Maxaa yeelay Al-Qaacida loogama baran in ay sheegi weyso hogaamiyaasheeda geeriyooday. Ilaa haddana ma jirto wax cadeymo ah ama wargelin ah oo ku aadan geerida Hamza bin Laden ee ka yimid dhanka Al-Qaacida. Warbixin laga soo xigtay wargeyska New York Times ayaa suurtagal ka dhigaysa inuu Hamza bin Laden dhintay, inkastoo ay weli ka fog tahay hubaal. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in Hamza bin Laden uu ku dhintay Afghanistan bishii December 2017 kadib markii lagu dhaawacay duqeyn xagga cirka ah oo ay u badan tahay tii lagu dilay wiilka yar ee uu dhalay Hamza bin Laden oo lagu magacaabi jiray Osama xagaagii 2017. ayagoo ka jawaabaya su'aasha ah sababta Al-Qaacida u sii deyn weysay geerida Hamza bin Laden, ayay sirdoonka Mareykanku sheegeen inay heleen cod si qarsoodi ah looga qabtay Al-Qaacida ayagoo oo ka hadlaya baahida loo qabo in la qariyo geerida Hamza bin Laden si ururku u sii wado shaqadiisa iyo in ay sii socoto ururinta lacagaha lagu helo magaca bin Laden magaciisa, iyo sidoo kale in la isticmaalo muuqaalka Hamza si ay ugu adkaadaan IS oo baratan kala dhaxeeyo, ayagoo soo jeedanaya dhalinyarada jihaadiyiinta ah ee jihadoonka ah ee ka soo horjeeda IS. Sirdoonka Mareykanka ayaa intaas ku daray dhamaadkii 2017 in ay ka war heleen in qoyska Hamza bin Laden ay ka soo guureen Pakistan iyaga oo ku sii jeeda Iran. Dhanka kale, warbixinta sirdoonka Mareykanka ayaa sheegaysa in codkii ay ka heleen Al-Qaacida ee ahaa in aan la shaacin geerida Hamza bin Laden iyo sida dhaqsiyaha badan ee qoysku uga guureen Iran ay sheegeen in ay tahay caddeynta ugu weyn ee ah
xaqiijinayso geerida Xamse bin Laden, balse taasi weli waa mid aad u liidata in laga go'aan qaato. taasi waxaa ka hor imaanaya warbixinta kale ee sheegaysa in wariye Afghanistan ah oo la yiraahdo Bilal Surwari uu Xamse bin Laden waqti kula soo qaatay koonfurta Afghanistan bishii Janaayo ee 2019 ee sanadkan. si loo cadeeyo geerida Xamse, jawaab loogama dhigi karo xogta sirdoonka Mareykanka sababtoo ah sirdoonku waxa uu sheego ma aha wax saynis ku salaysan. warbixinta ay sirdoonka bixinayaan waxa ka muuqda in ay weli gaabis ku jiro. waxaan xalqada dambe idinkugu soo gudbin doonaa oo aan idinkula wadaagi doonaa taariikhda Xamse bin Laden oo dhameystiran iyo muxuu kaga dhignaa Xamse bin Laden kooxda uu ka tirsan yahay ee Al-Qaacida, muxuuse yahay awoodda ugu badan ee uu ku lahaa, sideese ay lacag ugu qaataan magaca bin Laden. is leedahay dhalinyarada ugu badan ee Al-Qaacida ku biirta waxa ay Al-Qaacida ugu biiraan magaca bin Laden. xaqiiqada xogtaas ayaan idin soo gudbin doonaa xalqada dambe ee ku saabsan nolosha taariikhda Xamse bin Laden. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaan filayaa inaan kuu soo gudbinay xog aad muhiim u ah. fadlan si aad u hesho xogo kale oo dhameystiran, fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka ee Dan Wadaag Media Group, sidoo kale furo gambaleelka. mahadsanidin.